waxaan rabaa halkan inaan dawladda fariin uga diro annaga hadda waxaa naloo sheegay abaabul fara badan inuu socdo in dagaal la abaabulaayo nabad sugidda militariga booliska waxaan leenahay wiilal yahow Soomaaliyeed waxaad mushaarka ku qaadatiin oo dawladda aad ku tihiin dulum ma aha hadduu dulum yimaado dawladnimo waa dhimatay qof iyo qabiila la naqaa qof iyo qabiil haddii la naqdana dawladnimo waa dime adigu mushaarkaad weyhe garaadada garbaa kugu suranaad weyhe ummadana dib u celinaysaa annaga hadda annagoo qoryahayna haysana oo xabadayna haysano oo diriiri karna ayaan dhahnay ha dagaalamina annagoo meeshayna joogi karnaan dhahnay aan ka tagno si aysan caqabad kale u imaanin abaabulka socda ha la joojiyo haddii la jooji waayo mas-uuliyadda adinkaa qaadaaya magaaladan waa guri iyo qoray waa lays yaqaanaa waa laga keenay waa laga soo dharaandhiriyey madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa inaan xasuusiyo 4 sano ka hor aniga asiga waxaan isla joognay hotel jaziira waana la soo weeraray wiilashii nala socday khayr Allah siiyo maa'ida difaacay galeen waa iska caabiyeen waa ka hortageen dhimbasho iyo dhaawac waa yimaadeen nabada uga soo tagnay madaxweyne xasan waxyaabihii aniga asaga aan isku qabanay waxaa ka mid ahayd abaabulaan geenaynaa ciidamaan soo gelinaa beeshaan la hadlaynaa iyo ma samaynayna dagaalka hadduu istaago halkaas ku istaago caawa iyo habeen hore waa isku ogyihiin shalay annaga waxaa naga dhintay wiil aniga darawalkayga ku dhintay darawalka madaxweyne xasanna waa ku dhaawacmay waa 2 qof hadda waxaa dhintay wiil inta aan ogahay wiil kale waa la sheegay Allahu yaclam waa la soo ogaa doonaa wiilna waa dhaawac dawladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci haddii sharci la waayo nin walba taagtaada fuula imaanaysa noomana roona waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno annaga dagaal ma wadano xabada ma sidano cidaan dhib ku naamala waxaan sa garab taagannahay dadka madluumiinta ee Soomaalida ee la dulminayo oo aad aragteen aan garab taagannahay maxay tahay marka madashu waxa ay samaynayso madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo Soomaali meel ay joogto mudaharaad nabadeed oo lagu diidan yahay falalka waxshinimada ah iyo dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho mudaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa Ilaahay idankiisa maalinta Sabtiga ah bishaan aan ku jirnay ay tahay 27ka wuxuu ka dhacayaa 3 goobood goobta koobaad waa Siinay goobta labaadna waxa waaye Daynile